بريتشو سؤال شيء ودي سواء دفاع كسب حي مشارحين تا بنتلان أنا وحن قبائل إن مروا البض سديد الجنوري دور شل عاديو وضنكو صنوبة هنا بوق يو صواحا إن مروا البال عاديو دور شدي بنتلان سديد الجنوري قف كستوري بنتلان وأوجي هاي مركا كريه وحلو بهاي مشارحين تا وحلا جرها إن دجنا شو أي يحصلوني أنت ay muujiyaan tartankana u muujiyaan tartan aan dhibi ka dhicin 8 January Puntland ay doorasho aadayso insha Allah waxaan rajayn doonaa iyadoo hufan cadaalad insha Allah Bismillahir Rahmanir Rahim runtii qodobadii ka soo baxay shirkii madasha isbedel doonka Puntland waa qodobo u naxaya guud ahaan Puntland iyo raay ahaan runtii dimuqraadiyaduna waxa weeye in la kala badbaadiyo bulshada oo qaab qodar ogol heshiis lagu yahay oo dadka stakeholderska ay ka wada qayb galaan inay noqoto runtii anigu waxaan soo dhaweynayaa in doorashada Puntland ay ku dhacdo 6 iyadoo loo marayo in la soo wada ogol yahay oo bulshada guud ahaan ay ka wada qayb galayaan nidaamka dimuqraadiyadda soo socdayna insha Allah waxaan rajaynayaa xukuumadda cusub ee timaada inay sii wado oo halka ay ka sii wado balse hadda maadaama waqtigu gabaabsi yahay doorashadii Puntland 2 bilood ka dhiman tahay nidaamkii 6 ahayd oo bulshada Puntland qabayladeeda iyo dadka deegaanka wada dega ay ku qanacsan inay dhacdo guud ahaan taas ayay ku midoobi karaan bulshada Puntland qaab wadar ogolana ku dhici karta sidoo kale dadku waxa laga yaabaa inay isku khaldayaan ay leeyihiin waa waajib nidaamka dimuqraadiyadda la soo sidoo dimuqraadiyad oo wax wadar ogol bulshada ku qanacsan tahay maanta waxa muuqata in bulshada Puntland guud ahaan ay ku qanacsan yihiin in si nabad ah xukunka loo kala wareego insha Allah waxaan rajaynayaa in xukuumadda cusub ay maatana ay nidaamyada iyo dawladnimada Puntland si wado waliba nidaamka dimuqraadiyadda oo markaas baarlamaanka dambe la sahlo in lagu soo doorto xukuumadda dambe waa maasantiin xaaj kale waxaan rabaa halkan aan fikir yar ka dhiibto runtii qodobadii ay soo saareen shalay qolihii mucaaradka ahaa Puntland runtii qodobadaas waxay ka koobnaan 3 qodob si fiican baan u eegay u mariyay waxa ugu weyn dhaqaalaha iyo siyaasadda Puntland meesha ay marayso waxaad moodaysaa runtii qodobadaasi qodobada waaqici ah oo jira inay ahaayeen oo taagan xilligan laakiin wax saameeyna oo ay bulshada dhexdeeda ka yeelanayaan u malayn maayo inay jirtay waayo waxaad dareemayaa qolyahan mucaaradka ahi inay yihiin wax Puntland ka xumaaday cidii ka xumaysay number 1 sababtoo nimanka hogaaminaya ugu waaweynay waa kuwii shalay in lahaa waxaan maanta ay leeyihiin waa xun yihiin waa wanaagsan yihiin waa kuwii lahaa shalay waxaan ay maanta leeyihiin wax ka jira ma jiraan dawladda iyo dawladdiska iyo nidaamka mataqaan haddii la ku reeyay Puntland ka jira horumar baa lagu wadaa waa kuwii xisbiyada u ololeynayay oo dadka xisbiyada ka gadeeyay runtii marka waxaad moodaa inaysan mataqaan joogtug meeshaada joogay tahay dhanka kale xilligan ma muuqato xukuumadda laftigeeda inay u diyaarsan tahay inay doorasho qabato iyada laftigeeda waxa la doonayaa anigu aragtiyan waxaan dhihi lahaa maadaama SSC Khatum ay meesha ka baxday Puntland waxay u baahan tahay shirweyne siyaasadeed oo la isugu yimaado oo dib looga wada hadlo wixii la oran jiray Puntland iyo qaabka ay u ekaanayso iyo qaabka ay noqonayso inta ka bacdi baa doorasho la aadi kara doorashada dadku rabaan ma aha doorashada 66 xildhibaan iyo doorashadan xukuumadda laftigeeda ay wado aad wado iyada laftigeeda inay afduuban tahay bal waxa ka bedelan inay mataqaan haddii alla ku raayaday la keeno baa muhiima inta waxaan ku darayaa qoliyaha mucaaradku runtii dadku aad wax uga cabsi qabaan in dagaal dhaco in case haddii dagaal dhaco anu ma qabo in wax weyn ay soo kordhinayso dagaal boosaasu ka dhacay wixii khasaare ka dhashay waa la ogaa dagaal garow ka dhacay wixii khasaare ka dhashay waa la ogaa labadaba cid riday mucaaradka way haday ridaan maanta wax macna oo ay soo kordhinayso oo mataqaana male una malayn dadka reer Puntland ee dagaal ka cabsi qabaan ama xilli dagaal la joogo marka waxa aan leeyahay insha Allah hadda mar walba isku duubnida iyo midnimada wax ka weyn ma jiraan aad ma asantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh may TV ma bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Maxaa Farax nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Kampala oo runtii kamid ah waxa weeye dhalinyarada Kampala ku nool oo waxbarashada iyo laynka iyo nidaamka u joogta ah
runtii waxa way waa dhigaysan qodobadii ay maxaafadka iyo mu'ayidka ay waxa waaye ay sameeyeen runtii qodobada waxay u muuqdaan dawladdeena Puntland ee 98 aan dhisanay inay dib u burburinayaan waayo mucaaradka hadaladooda waxa ka mid ahayd waxa waaye madaxweynuhu hadduu doorashada waqtigeeda ku qaban waayo inay madaxtooyada uga soo saarayaan xabad annaga marka ka dhalinyaro ahaan qodobkaas noolama muuqdo qodob macquul ah mana soo dhaweynayno waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha in waqti la siiyo dalkan waxa waaye Puntland waaye 98 baan dhisanay meel fiican buu marayaa madaxweynaha in waqti la siiyo waxa waaye haddii ilaahay kuu soo ogol yahay waxa waaye waqti la siiyo oo doorashada waqtigeeda uu qabto taasaan waxa way soo dhaweynaynaa waana ka xunnahay waxa waaye siyaasiyiinta hadalka ay soo jeediyaan oo ah waxa way Puntland inay dhahan waxaan ka sameeynaa waxa way xabad iyo waxa way iyo dagaal iyo qarlaaso taasna waxaan dhigi karaa runtii waxay nagu celin kartaa in waxa waaye aan u laabano meeshan ka nimid tan kale aan ku darsanayo waxa weeye Puntland dimuqraadiyad bi aaday waa ka tagnay 66 xildhibaan oo wax noo dooran jiray maanta waxay maraysaa qof kasta inuu codkiisa asoo ku cilbaxo qof kasta inuu codkiisa waxa way ku cilbaxo waqti la siiyo qof kasta inuu waqtigiisa uu qaato marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa waxa weeye dimuqraadiyadda soo dhaweeyaan mucaaradka waxaan ku boorin lahaa inay soo dhaweeyaan waxa waaye bismillahir rahmaanir rahiim haddii aan fikradeeda ka dhiibto mucaaradka iyo dawladda Puntland dimuqraadiyadda ay wado maalintii dhaweyd warmutiyeedka ay soo saareen golaha mucaaradka ma ahan wax meesha ku jira oo Puntland iyo dadka reer Puntland iyo deegaanka Puntland u danaynaya waxay ahayd wax muujinaysa kicin bulsho kicin isku dir bulsho iyo qaab qabiilaysan loo soo abaabulay bay ahayd mana taageersanin waxaana soo dhaweynaynaa dimuqraadiyadda iyo dawladdu ay wado in la taageero shacabka reer Puntland inay isku dugnaadaan dawladooda taageeraan dimuqraadiyadda soo dhaweeyaan laga gudbo Puntland saan ogsoonahay waxay jirtaa 25 sano waa rubuc qarni wax naqabtana ma ahan in aan sanad walba ku meereysano xaaladda noocaas oo hadba qolo sheegato inay hantilayaasha Puntland tahay waxaan soo dhaweynaynaa dimuqraadiyadda inay dimuqraadiyaddu jirto in dawladda la taageero in la soo dhaweeyo dimuqraadiyadda iyo dawladdu qaabka ay u wado doorashada taasaan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay wixii ka dhacay warmurtiyeedka lagu sheegay wax u danaynaya dadka reer Puntland iyo deegaan ahaan Puntland u danaynaya ma ahayn wax waxa ahayd muujinaysa kicin bulsho iyo qaab qabiilaysan loo soo abaabulay intaasaan soo gabagabeynaya salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waa soo dhaweynayaa war saxaafadeedkii ay soo saareen ama warmurtiyeedkii ay soo saareen midowga mucaaradku waxaan leeyahay waan adkeenayaa in la qabto doorashada waqtigeeda lagu qabto 8 January waa waxa weeye reer Puntland lagu bartay inay doorashadu ay saacadna dhaafin xilligeeda marka doorashada waa in lagu qabto waxa aan kale aan ugu baaqayaa dhaqanka inay doorkooda qaataan sida musharaxiinta iyo siyaasiyiinta Puntland ay ugu dadaalayaan doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaa leeyahay waqti fiican baa soo qaadatay waqtiga 5 sano waxa ka dhiman wax yar extension iyo ku darsi dhibaatada uu leeyahay waa soo aragtay adiga ayaa waqtigaagii aad Puntland madaxweynaha ka ahayd ay Soomaaliya ka dhacday lidaalika wax suurtagal maahan